cidda u baahan marka inay aragto xogtaasi, xeerka marka xasaasiyadda ee xogta ama muhiimadda xogtaasi leedahay, iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii xogtan la shaaciyo ama la jabsadaba, khasaaraha ka dhalan kara in la ogaado. Marka hababka lagu ilaalinayo confidentiality-ga ayaa ah marka access control list in la sameeyo, filekaasi ama datadaas in encryption lagu sameeyo ama la sirgeliyo. Asalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada. Maanta waxaan topigeeni cyber security-ga aan uga hadlaynaa dambiilayaasha computer-ka ama computer criminalska loo yaqaano. Marka dambiilayaasha computerada ama computer criminalska waxay marka heli karaan qalabyo badan oo ay ka mid yihiin sida qalabka hardware-ka ama computerada, iyo sidoo kale qalabka software-da ama barnaamijyada. Sidoo kale data ayaa heli karaan. Waxay awood u leeyihiin marka inay dhaawacyo gaarsiiyaan marka ganacsiyada, NGO-yada, kambaniyasha iyo dowladaha adduunka oo dhan. Marka ujeedada ugu weyn ee cyber security marka waxay noqonaysaa waa in laga hortagaa marka dambiilayaashaasi si aysan u geysan waxyeelo. Computer crime-ka ama dambiyada computerada laga sameeyo waa dembi kasta oo ku lug leh computerka ama lagu fuliyo iyadoo la adeegsanayo computer ama laptop wuxuu noqdaba. Inkastoo marka qeexitaankani uu ballaaran yahay, haddana waxaa naga caawinayaan inaan fahanno sida aan nafteena iyo ganacsigeena iyo bulshadeena baan uga ilaalin karno marka dadka xun ee adeegsada computerada. Sababtoo computerada waxay leeyihiin dad fiican iyo dad xun labadaba ay adeegsan karaan. Marka mid ka mid ah siyaabaha looga hortagi karo dambiyada cyber security-ga waxay noqonaysaa in la fahmo dhibaatada iyo meelaha laga soo weerari karo, yaa ka dambeeya ama dambiyada sameeya iyo maxay u sameeyaan, inaad ogaatid oo su'aalahaas ay isweydiisid. Marka cilmi baarisyo badan oo lagu sameeyey astaamaha dambiilayaasha computerka si mustaqbalka loo ogaado marka dadka halista ah loogana hortago dambiyada ka hor intaysan dhicin waa muhiim. Marka waxaa jiro wax basic ah ama asaasi ah qof walba inuu fahma muhiim ay tahay oo horey nagu soo hadalnay oo la yiraahdo CIA triad la yiraahdo ayaa jiro. CIA triad waa qaab security model loo sameeyey si dadka loogu caawiyo inay fahmaan qaybaha kala duwan ee amniga tiknoolajiyada ama IT security-ga loo yaqaano. Marka CIA triad waxay ka kooban tahay sida horey u soo sheegnay 3 mabda oo waaweyn oo basic u ah cyber security-ga. Number 1 waxaan ku soo sheegnay confidentiality ama sirta xogta. Mid labaad waxay ahayd integrity ama sugnaanta xogta. Mid saddexaad oo ahayd availability, helitaanka marka xogta markii loo baahdo. Marka confidentiality-ga haddii aan ka hormarno maanta waa muhiim in dadka laga ilaaliyo xogta gaarka ah si xogta xasaasi ah aysan u helin dadka marka aan loo ogolayn xogtaas inay helaan. Marka ilaalinta sirta xogta waxay ku xiran tahay marka in la qeexo cidda heli karta xogtaasi iyo in la dhaqangeliyo xeerar galitaan ama access levelska in la dhaqangeliyo. Iyo mararka qaarkood oo xogta waxaa loo kala saaraa qaybo kala duwan iyadoo lagu saleynayo cidda u baahan marka inay aragto xogtaasi, xeerka marka xasaasiyadda ee xogta ama muhiimadda xogtaasi leedahay, iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii xogtan la shaaciyo ama la jabsadaba, khasaaraha ka dhalan kara in la ogaado. Marka hababka lagu ilaalinayo confidentiality-ga ayaa ah marka access control list in la sameeyo, filekaasi ama datadaas in encryption lagu sameeyo ama la sirgeliyo, iyo in fileka meelahaas uu ku jiro hard disk-yaasha wixii lamid ah encryption lagu sameeyo, in filekaas in ogolaansho loo sameeyo oo qofkii loo ogolyahay kaliya uu galo oo qof walba aan iska gelin. Tan labaad oo CIA triad ka mid ah oo ugu muhiimsan integrity ayay noqonaysaa. Integrity marka waa sugnaanta xogta. Integrity marka waa xarafka waxay ka noqonaysaa CIA marka la soo xisaabina xarafka labaad weeyaan. oo CI trial ka mid ah. Marka waxay hubisaa in xogta aan la tirtirin
in aan wax laga bedelin iyadoo yacni aan fasax loo haysan. Waxay sidoo kale xaqiijinaysaa in haddii qof loo oggol yahay uu sameeyo wax ka beddel xogtaasi uu sameeyo, in lagu celin karo xogta marka sidii hore oo ay ahaydba. Marka midda saddexaad oo ugu muhiimsan oo CI triad ka mid ah waxay noqonaysaa availability weeyaan ama helitaankii xogta. Availability-ga waa marka qaybta waxa weeyaan ugu dambeysa ee CI triad waxay ka dhigan tahay marka in xogta la heli karo marka loo baahdo, nidaamyadaas si sax ah yacni u shaqeeyaan. Marka adeegyada gelitaanka xogta ama authentication-kii iyo marin u helidda yacni access-ka oo ay shaqeynayaan waa muhiim. Marka fahamka guud yacni CI triad waxay noqonaysaa CI triad waa waxay inta badan diiradda saartaa xogta ama information-ka ay diiradda saartaa. Inkastoo ay tahayna yacni saldhigga amniga IT-ga, haddana ma dabooleyso dhammaan dhinacyada amniga. Yacni tusaale, availability-ga waxay hubisaa maogtahay inaad heli karto xogta marka loo baahdo, laakiin tani micnaheedu ma aha in qofka kale uu si sharci darro ah u isticmaalin qalabkaaga ama hardware-ka. Marka sidaas daraaddeed marka waa muhiim in la fahmo waxa CI triad tahay, sida loo yacni qorsheeyo siyaasadda amniga, sida loo hirgeliyo marka, iyo xaaladaha ay leedahay iyo waxyaabooyinka ay soo wajihi karaan. Marka aad si fiican u fahanto CI triad, waxaad awoodi doontaa marka inaad si sax ah uga faa'iidaysato adigoo ka fogaanaya dhibaatooyinka ka dhalan kara marka faham la'aanta. Waa maxay horta asset ama hantidu? Waa maxay asset-ku? Waxay noqonaysaa wax kasta oo qiimo leh oo u baahan ilaalin ayaa waxaa loo yaqaan asset. Badanaa xog yacni waa nidaam ama xog muhiim ah oo ay ku jiraan xog xasaasi ah oo company u gaar ah oo muhiimadeeda gaarka ay wadato, ama loo isticmaalo gelitaanka nidaamyada kale. Tusaalooyinka marka asset-ka waxay noqonayaan company-ga wuxuu isticmaali karaa ama uu leeyahay desktop computers, laptops uu leeyahay, ama waxa waaye telefono, iyo waxa waaye softwares ama serverski iyo network deviceski ama support systemski, database-yadii iyo waxa faylal muhiim ah oo meesha yaala, ama physical fileski oo meelaha la surayo darbiyada meesha lagu raseynayo ha noqotee. Marka xogta xasaasiga ah ama sensitive data, marka company kasta wuxuu leeyahay information ama assets kuwaas oo ah xogta iyo kaydadka muhiimka ah ee uu hayo. Marka waa maxay threat-ka ama khatarta? Iyadana maxay noqonaysaa? Threat-ku waa dhacdo kasta oo si aan u saameyn karta asset-ka ayay noqonaysaa. Waxay noqon kartaa marka luminta asset-ka, ama in hantidii la lumiyo, ama in dad badan oo loo oggoleen ay galaan ayaa dhibaatooyinka ka imaan karaan. Marka threat-ka ama khatarta waxay dhaawici kartaa marka saddexdii mabda aan kasoo sheekaynay ee CI triad ayay dhaawici kartaa. Confidentiality-gi iyo integrity-gi iyo availability-gi ayay dhaawici kartaa. Threat-yadu ama khataraha marka waxay noqon karaan intentional threats-ki, khatar oo ula kac ah si ku talagala loo sameeyo. Tusaalooyin weerarada oo hackers-ka ay sameeyaan ka mid ah, waa shaqaalaha oo ula kac waxada xogta company-ga ayaa ka mid ah. Accidental threat inuu dhaco, khataro oo aan ula kac ahayn inay dhaco, waa khataro ka dhasha marka waxa weeyaan qalad ama shil ka dhasho ayay noqon karaan kuwaasna. Tusaalooyin waxa weeye khaladaadka shaqaalaha sameeya ayaa ka mid ah, cilad farsamo ay imaan karto, daba kici karo, roob ama daadad meesha imaan karo, duufaano, dabeelo, wax saas ah imaan karo, masiibo dabiici ah ayaa dhici karo. Marka kuwaas oo dhan waxa weeyaan ula kac ma noqon karaan. Marka aad u mahadsantihiin maantaydan ashirkeena intaas ama darsiga lecture-keena intaas ayaan kasoo koobaynaa. Marka fikirkiina waa muhiim. Aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.